xogayaha guud ee qaramada midoobay oo warbixin siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin waxa uu ka siiyay qaraxyadii iyo weeraradii ka dhacay meelo ka tirsan Soomaaliya bishii Maarso. warkan waxaa si anbaqaadaysa wariyahayaga Asmo Yaasiin Cismaan. xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay warbixin ka horjeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in bishii Maarso oo kaliya ay ka dhaceen Soomaaliya 77 qarax iyo weeraro kuwaas oo lagu dilayo dad fara badan. Antonio Guterres ayaa sheegay in arrintaasi ay cadeyn u tahay tababaryarida dawladda Soomaaliya isagoo cadeeyay in hal bil weeraro intaas la eg ay dalka ka dhacaan ay ugu dambeysay sanadkii 2016 xilligaasi oo dalka ka talinaysay dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waqti kala guur ah ku jirtay. arrintan waxay muujinaysaa tababaryarida dawladda waxaana wax laga xumaado ah in bilihii Abriil iyo Maarso ay weeraradii ugu badnaa kooxaha Al-Shabaab ay ka geystaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho. farsamada ugu badan ee Al-Shabaab hadda ay adeegsato waa miinooyinka ayuu yiri Guterres. xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio ayaa dhinaca kale sheegay dawladda haatan dalka ka jirta ay ku fashilantay la dagaalanka Al-Shabaab ka hortagga xasilooni la'aanta siyaasadeed iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, balse waxa uu qiray in dib u dhiska hay'adaha dawliga ah horumar laga sameeyay laga soo bilaabo 8 Febraayo sanadkii 2017 xilligaas oo la doortay madaxweyne Farmaajo. ugu dambeyntii Antonio ayaa sheegay inay kordheen weeraradii dhinaca cirka ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dagaalada ay qaadayaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo ay si dheer tahay howlgallada laga sameynayo dalka gaar ahaan caasimadda. Asmo Yaasiin Cismaan, Som News TV, Muqdisho.